halkeebad adduunka u jeclaan lahayd inaad ku noolaatid aniga dhulka hooyo meel ka wacan talo meel helaya magaaladee baad jeceshay inaad lifekaaga aad ku aamini jirtay inaad ku noolaatid muqdisho insha Allah muqdisho ku tiri jirnaa baabad weligaaba iskaga urtkala jirtay kole ha aad u mahadsan tahay qof dee waaba inta badan dadka markaan weydiiyo su'aalaha iyo dhalinyarada ay weydiiyo qof meel wallahi anigu waxaan ku noolaan lahaa Mareykan ma anigu Australia ma anigu waxaan qurbaha saamileytisin aniga waxaan ciida hooyo ahayn waxay Soomaaliya dhinaca ma laga maro ha ilaali waxa weeyaan dhulka hooyo ka shidanta hadii ilaahay xafmad qabnu gaarsiiyo wadanta markaad muqdisho tagtay wixii kugu la yaab ka badnaa maxay ahayd horta magaalada muqdisho iyadoo waa jaamacad waa jaamacad waska tacliinteeda far badan tahay laakiin saanu inta wanaagsan baan ka hayaa waxaan muqdisho ka arkay daristiila is cafinaya waxbaa dhacaya hore la iska cafinaya waxbaa dhacaya waxa weeyaan qurux baa laga sii qaadaya ruuxaantii intan dambe deegaanka ku noqday maayna markii ugu horeysay joogitaanka muqdisho waxay ahayd la yaab bay igu ahayd cashar ku dhinaa laakiin markii dambe la qabsaday anigii muqdisho cidna kala gaadhaan garan waayay luuq kastaan galay meel kastaan laakiin waxyaabaha ugu laabka badan waa cafiska faraha badan ee bulshada ku arkay waxa way dadkaas dambe oo meegaale markaas ruuxaantii tegitaanka qofku markuu muqdisho ku sii safraayo wax badan buu isweydiiyaa ama waxyaalaan isweydiin jiray waxa ahayd in Cabdiraxmaan magaalada xageed ka degaysaa aan soo dhan jiray te kulli waxaan mooday magaalada inay wada xaalad kale inay ku jirto laakiin markaan muqdisho tegay aniga iyo muqdisho iyo shacabka ciidna kala saarta malaha 7 bilood ayaan ku soo dhawaystay laga soo furfuri waayay ayaan ka dirqan ka soo baxay insha Allah ku tiri jiraan ku noqdo ma intii horaadan tagin muqdisho aadan tagin sawir noocee baad ka haysan jirtay sawir aad falx ma ka haystay laakiin se 900 jeer sawir aad qurux badan ka helay haday taa nolosha haday tahay deganaasho haday tahay dad wanaagsan haday tahay shaqadeeda maanta meelan ku doorsanaa ma jirto ما شاء الله أدوم ما هسنت هاي دمع رين مقدشنا دمع وين داوني عاوة وحبين فرحة